dumarkiina xasuuqa cirro waanu ka diidnay dibadaha uga yaaca cirro waanu ka diidnay guryihiinna duqeeya cirro waanu ka diidnay cirro waanu ka diidnay dumarkiina xasuuqa cirro waanu ka diidnay diriiroo ka kacay cirro waanu ka diidnay waxaan idiin sheegayaa nimanbaa ka hadlaayay ceergaabo oo ka hadlaayay burco uu ka mid yahay nin caaqile siciid martiilaaq waxaanu leenahay markaad leedahay muuse cabdilla jabadii ka hadhay oo waynoo hargeysa ee qoryaha soo gurta iyo wixii jabhado suukaan keena berbera miyaad ka baqatay inaad ku qabato oo waxaad hargeysaan rag lahayn halkana rag baa leh waxba ka dhici maayaan ninbaa waxaa la yidhi nin laangaadhaa baa nin u hanjabay wallaahi intaan soo kacoyn guriga ku qabana kuu kaaji buu ku yidhi wuxuu ku yidhi maadaa kacba maxaad igu kaaji waa ragga jabhadda sheeganaya fulayaasha ah ee aanu isgaranayno ee hebello badan leh ee ilaa ceergaabo ka soo socda hargeysa ku soo socdow hargeysa rag baa leh waa la kala baqan doona haddii la kala xishoon waayo waxna ka dhici maayaan wax ka dhacayaa ma jiro garxajis marka la leeyahay hargeyse laba reer baa u deegaana isaxaaq iyo ciidagalaa u deegaana labadaa reer waxaanay ka samaynin cidina kama samayn karto ninkii uu soo baana annagoo isgaranaynaa malaha afka kama odhan meeshuu ka yidhi ma garanayo waxaan leeyahay isaxaaq iyo ciidagale wixii ay ka taliyaan hargeyse ayaa soconaya nin kale kama hadli karo magan buu ku joogaa walaal caanaha iska daadin baan leenahay kaana intaasaan leeyahay waxaan leeyahay faysal caarig waraabe abti 4 goor baanu ilaahay ku horgeyn afartiiba wuu ku diiday wallaahi inaanu mar shanaad ku qaadanayn war waxaad yeeshaa war aad yar masaajidka gal faysalna intaasaan ku dhaafaya cabdiraxmaanna waxaan odhanayaa cabdiraxmaanow wallaahi aad baan uga raxay maalintii dhoweydaad carruurta hor boodboodaysay wallaahi waa kuwaa dilay baan idhi inta badan yidhi halkan waxaanu haddaanu beesha isxaaqnahay aanu ka caddaynaynaa nimayow haddii waxaynu nahay innagu waxaynu ka mid nahay jamhuuriyadda somalilan xilli ay qabiilla isugu hanjabto way soo dhaaftay waa asxaab waa xisbiyo waxaannu leennahay doorashooyin fara badan baa la soo qabtay qaar baa dib u dhacay si kasta ha wa dhacdo waxa weeye waxa wax lagu kala helayaa doorasho iyo colaad waxba lagu kala heli maayo ilmaadeerayaal waxaannu annagu taageersannahay nabad nin kasta oo kursiga hunguri ka haya inuu nabad ku doonaa baannu taageersannahay arrin shirkaygana wuxuu daaran yahay arrin nabadgeliyo arrintaa nabadgelyo ayuu daaran yahay annagu hase haatee annagu dantayada reernimaanu ka hadlayno waxa weeye caaqilkii ka hadlay burco ee siciid martiilaaq ee ku miidhiyada ka yidhi maanta ha la diyaargaroobo qoryaha la urursado weynoo iyo hargeysa ayaynu tegaynaa la gelayaa waxa weeye siciid martiilaaq caaqil buu ahaa nabadoon buu ahaa waxa weeye raggii nabadda ka talin lahaa buu ahaa raggii islaax beelanaas weligoodba ku soo jiray buu ahaa maanta laakiin way ka xumaatay caaqil way kaa xumaatay baan ku leeyahay mar hadday kaa xumaatayna hargeysa iman maysida hargeysa nabadgelyadeeda ayaanu ilaashanaynaa ciyaalkayaga iyo dumarkayaga iyo ciroolahayaga ka dhigan maysida teero aad xabadda iskaga dhigto waxa weeyaan hargeysana inaga dhaxayn maysa calanka somalilan iyo jamhuuriyadda somalilan bay inaga dhaxaynaysaa laakiin hargeysa inagama dhaxayn mayso inagamana dhaxayso nabad bay inagaga dhaxaysay nabaddii waa diiddo oo ciidan baad u soo haysaysay sidaa aawadeed hargeysa inaga dhaxayn maysa calanka somalilan inaad inaga dhaxayaa ku leeyahay nin labaadoo hadloo reerka ah oo maxamed warsame la yidhaahna 2 kelmadood baan odhanaya waxa weeyaan maxamed warsame ragga halkaa isxaaqa fadhiya waxa weeyaan da'deeda isagaa ugu carruur badan carruurtiisi bay isxaaq u fadhidaa inaan waxaan ku dhaanay xabadaas ku dhicin inaan ciyaalkiisa iyo dumarkiisa iyo midna xabad ku dhicin oo ay ku eego xabad ku dhicin baa halkaa isxaaq u fadhiya anigu waxaan leeyahay maxamed warsamow inaadee jimba khuruuj kugu soo baxay soo baydh baan ku leeyahay soo baydh oo maanta u hor istaagnay miidiyaha waxa weeye wixii haddaynu nahay isxaaq aynu ku suntanayn oo ah nabadgelyada isxaaq dadka wuxuu kaga suntanaa kaga duwanaa waa nabadgelyada nabad iyo caanaynu hayn
dad iyo duuya waynu isku keeni jirnay kaalintii awoowayaashay nooga tageen magacin la baabiyo ma rabno diyaarna uma nihin magaxumo dadka kuma dhex jiri karno ninka is hayaa waxa isku hayaan waa kursi dawladda jirta cid aan ku jirin ma jirto cidda wax dhaliilaysa reeriyaanay dhaliiline dee kasaraha qabsato waynu simanahay cod baad xaq nuugu leedin laakiinse dadkiina iyo dadka iyaga xabadda isku dhiga xaq nuugu ma lihidin haddaad macaaridma doonayso 6 bilood baanu soo jiifnay dhaxanta soo jiifnay erro maalin kaliya maanu arag dadkana noogama duwana haddana wuxuu nooga dalbado oo na tusay wanaaga waan ku siinaynaa laakiin nala xabadda isku dhiga magaalada Hargeysa aanu kicinaynaa dadkii xaq nuuguma leh uu Isxaaq nabadgelyada uu ku dhawaaqay sida beesha habar jecel noogu taageertay waxaanu ka codsanayaa in beelaha kalena nabadgelyada iyo deganaanshiyaha nagu taageeraan haddaan beesha Isxaaqnay waayo nabadgelyadu nin walba uu dan xusbiyada iyo waxa kale waa laga jawaabaanu ka jawaabmayo anigu waxaan leeyahay waar nabadgelyada inoo wadadana aan qaniinsanaan dalka xisbiyada saddexda xisbi iyo madaxweynaha waxaan leeyahay dalka adaa xukuma dadkana mid mucaarada iyo mid muxaafida adoo madaxweynaha dhammaan adoo madaxweynaha mid kula taliya iyo mid ku xamanayaba adoo madaxweynaha waxaanu leenahay annagu waa shir nabadgeliyo Isxaaq baanu nahay haddaad nabadgelyadu waxay ku dhammaanayso qabato haddaanu Isxaaq nahay adaanu ku taageersanno waa ku barbar taaganahay kuwana waxaanu leenahay 2 jeer baa shirna loo diiday bay leeyihiin 2 jeer ayuu madaxweynuhu noo diiday macaash bay siinaysaanoo dow baanu leenahay baa leedii mar iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 haddaad dee dow leediin nin bilaawaloo dirir margaday iyo nin gar loo diriray baa dadka ugu liitee ha jabinoo ha diririne dowga sheeganaysaan mar wal oo la diiraa soo fadhiistaba madaxweynaha hortiisa waa inaad tagtaanoo fadhiisataan waayo dalka madaxweynaha ka mas'uula takala waxaan u sheegayaa xusbiyada iyo xukuumadda dadkan amba Soomaaliya ha noqoto amba Hargeysa ha noqotee waxa hooyaya aabbo aan nabadda hooyaya aabbo waxa nabadda ninka nabadeeda ku ciyaara ninka nabadeeda u dulqaadan mayno haddaan mahay deegaankii Isxaaq u dulqaadan mayno Isxaaq weyna wada fadhiya waa deegaan Hargeysa u dulqaadan mayno ninka ku soo duulay ee nabadda ku soo duulay waxaan ognahay dad badan oo deegaannimada ka xun oo kursi doonayn laakiin se ku socda deegaannimada Hargeysa taana waanu aragnaa ninkan walaalnimo ku soo dhawaynow ninka xumaa ku jawaabow waanu ku aragnaa waxaanse leenahay xukuumadda iyo xusbiyadaba waa dadkan waxa aabbo iyo hooyo u ah nabadda yaan lagu ciyaarin nabadeeda yaan lagu ciyaarin ninkii wax tabanayow miiska kaale baa lagu yidhi waxaanu taageersannahay weliba haddaanu nahay Isxaaq weyne nimankii habar jeclo ee ka hadlay Burco ee nabadda taageeray xoojiyey ayaan haddana Isxaaq weynena taageersannahay waanu taageersannahay kaasaanu taageersannahay deegaannimadaanu taageersannahay qarannimadaanu taageersannahay labada kuraasta doonayana waxaan leenahay waa ninkii kursi doonayow dagaal laguma helo